أنا كل عبادة سني قريان أباهية ويلا أنا أوسني وكل عبادة سني ويلا أنا أوسنا أدير معاني قريان والله عاطي وياي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkaas oo naga daawanaysan halkani waa Cabbaas Madani sii share gareey muuqaalkan horta marka hore faralka guda sii share gareey bushaaraan idii hayaa waxaan faahfaahin doonaa dagaalkii maanta ka dhacay duleedka Cerigabo dagaal qaraad waa dagaalkii duhradii bilowday ilaa iyo maghribadii soo gaaray dagaalkaasan update iyo warbixinayday waxa way hadii la kuuriyay rasmi ah baan idin ka siinaya fadlan isi gaarsiiye maanta waxaa dagaal xoogan uu ka dhacay duleedka magaalada Cerigabo ciidanka dhulbahante iyo warsangeli ee halkaas ku sugnaa ayay maanta weerar ku qaadeen jabhadda argagixisada Islaam beesha Isaaq idoorku waa dad yar oo iska caadifiyo moogta shalay magaalada marka ciidamadeeni waxa way xeelad dagaal laga saaray rag waxay isdheen ciidankeeni waa jabay bay isdheen ciidankeeni waa laga awood batay inuu ka xawma hayaan bay isdheen ciidankeeni bay saaka galinkii hore ciidamay soo abuureen weerar bay soo qaadeen meel la yiraahdo dhul mare oo Cerigabo saaran oo dadka reer Cerigabo way garanayaan ayay weerar ka soo qaadeen saddex jeer warka xaqiiqada waxa weeye weerarkaasi marka uu bilowday nimankii warsangeli iyo nimankii dhulbahanto halkan midyaha hadii la kuray afaysanaya oo diyaar garoobayo isu soo tabaarushanaya magaalada Cerigabo ee si gacanta lagu dhig lahaa oo wiilal beerku madow yahay oo aan qoslina ay afka waxa way hadii la kula ka soo galeen fadalkood baa la cabay agta la mariyay war meeshaasi Isaaqa maanta dhirbaxada ku dhacday u maleen maayo maalmahan iyo toddobaadkan inay ka soo waaqsan doonaan dhammaan saddex goobood iyo saddex waxa way jiho ay ka soo weerareen ciidankeena dhammaan waa la kacay ciidankeena baana ku sugan goor galabta ah oo afartii galabnimo ah ayay soo rogal celiyeen oo gurmad badan oo heleen iyo waxay saareen ciidankiin markale way ka dhaafay galankii hore duhuradii waxa way maxaabiis baa laga qabtay 12 maxaabiisa dhimashadooduna 18 baris nin sarkaal oo la xiriiray way ka famgareeyay 1 2 3 4 5 ayaan idhi dhimashadooda meydkooda tarab arinta la yaab kale oo la sheegay nimankani ragga waxa uga qiimo badan gaari la ka qabsan dhalinyaradii ay soo haligeen way ka yaacayaan markaas kuwin hadii la kuuray taayarka markaas waxa way magaraas sakaawa ka dhigay sakaawa gaariga iyo qofka xaqooda gaariga u miibsan war gaari waa la helaa waa la iibsadaa nafta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxa wiil yar meesha habar jeclaa oo waxa way habar yoonisa oo waxa way meesha laga cararay oo la walaalayda alla weyda doorta ninka askarteena kiin xaris haana maxaabiisa buu qabtay kii beerku mudawana Cabbaas Madani oo kalena waa cibaadaystay si toos u cibaadaystay weerarkii labaad ay soo qaadeen weerarkii waa ku jabeen afar gaari oo gaadiidkan tiraafiyada ay saaran yihiin dhishikayaal afarta gaariba waa la gubay goobihii lagu gubay waa dhul mare dhammaan goobahaasna ciidamadeena ayaa gacanta ku haya dhul mare waa meel deegaan yar weeye oo mutulaya ka dhisan halkaasi maanta si wanaagsan baa iyada laftigeeda looga habaysto imika waa goor habeen weeye dhulku absolute ateenadii baa la jaray khadmad jiro oo sida lagu helo waa adag tahay qofka in telefoon caadi ahaan loo waco mooyaane qofka ugu horeeyo waa inuu fiqfiliyo tagaa oo halka marka khadka internetka ka soo galaa laakiin wixii fiqfiliyo Cerigabo soo xiga khadka internetku already waa xiran yahay absolute waa xiran anyway rankaasi 32 maxaabiisa ayaa sarkaalkan la hadlay iyo xaqiijiyay waxaana balantu way barito in si toos ah warbaahinta loogu soo bandhigo iyagoo magacyadooda iyo qabaylka yihiin sheegaya khasaarahaas maanta gaaray iyo dhimashada maanta galinka hore 18 meeyda caawa markii dagaalkii soo gabagabay oo soo dhamaaday dhimashadoodu waa tarab way waa muush way 1 2 3 laba oran karo halkaas joogan maxaabiis laga hayo wasaan idin sheegay waa 32 nin gacanteeda ku jiraan
gawaarida idisha afarta gaarina waa laga gubay meesha ugu sokaysa ay joogaan caawa waa ceerigaabo weeye meel ceerigaabo ka sokaysa oo ay joogaan ma jirto muuqaalada hordhacaan baahiyey waa muuqaalada hordhaca ah ee gelinka hore la duubay dabcan laakiin gelinka dambe muuqaaladii ila hadda absolutely maadaama khadka internet ku xun yahay oo taleefanka koolka uu kaliya uu shaqeynayo waxa weeye muuqaalo badan baa la soo bandhigi doonaa waxa la soo bandhigi doonaa rag badan oo qaarkood saraakiil yihiin oo dagaalka ku jiray oo absolutely gacmaha taagay marka gaadiidka ka carareen horta xogtaas weeye meeshaasi absolutely maanta lagu gacan sareeyay inagana ku gacan sareen waana lagu kala adkaaday mar haddii ciidankaagi qayb la laayo qayb maxaabiis ahaan loogu qabto gaadiidkaagi la gubay goobihii lagaala wareegay dee guuli kaa fog absolutely guushu waa inaad goobtina u hadhaa maxaabiisna aad qabsataa jug weyn aad geysataa intiina waanu geysanay intaas horta waa qodob weyn waxaan rabaa inaan mahad celiyo ciidanka waxa weeye haddii la ku dhulbahante iyo warsangeli qaabka maanta ay u dirireen qaabkay waxa weeye haddii la u hilbadirireen waan hambalyeelayaa anugu horaan u sheegay dagaalka haddii warsangeli iyo dhulbahanta u midoobo meeshaas waqti badan inagu qaadan mayso waxaan leeyahay oo halkan rabaa inaan hambalyo dhaho horta cornel cabdiwaacid way maqlayaa waxaan leeyahay waa kaa haynaa bohoys laba waa haynaa dubays waa haynaa reer xaaji waanu haynaa waxaan rajeynaya warsangeliga kalena dagaalkayna soo galaan oo aan loo kala hadhin waxaan kaloo rabaa inaan bogaadiyo nimankii reer ceerigaabo ee warsangeli ahaa ee dhulbahanta ahaa ee aan xalay halkan fariinta uga diray fariintiina automatically waa qaateen waana guulaha maanta aynu gaadhnay waxa sababta u ahaa weeye xalay waynu ballantir waa kasoo baxeen aad iyo aad waad mahadsantihiin isaaq waynu isu naqaanaa ilaa 91kii meeshan absolutely ceerigaabo markii ugu horeysay aan isku dirno ma aha weligeen baynu isku dilaynay weligeen inay ku gacansareynay oo markuu abwaankii weynaaye calmadow lahaa haddii meel la daashaa limin iyo darajo keenaayo boqol nin baa laga dallacay gaari dabadii kalmac iyo kal shiikh buu wadhnaa maydka reeru waayo way doorkii weeye dubays baan cumar ogeyn jeex duudumo waa markii wax weye ceelaf weyn iyo haddii ala kuri dhulkaas oo dhan cagta lagu mariyey iyagoo jabahadii argixisada snab ahaa 91kii nimankan waynu isnaqaanaa nimankan absolutely waynu isnaqaanaa reer cergaaboodka waa iyagaa suukan caariyey way suukan caariyeen maanta sakaagu waa shaqaysta dhinaca kale abwaankii weynaaye bidda faaraxgaas waa tuu lahaa tagtaada lama ilaawo oo dadkan kaa takoray toddobaado godan baan dhasho layma taag helo mar haddii tacshiir ay dhacdo oo taageeruhu liico mani loo turaanahay aniga itayda noqotaaye nimankii cabdilla xaamud iyo nimankii haddii la kuurayaay mushuturwa horta nimankaas inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun sakaawa qaatay baa leeyahay niman reer iidloo biciidaana runtii faladkood baa la cabay baa leeyahay nimankaas aad bay u madheen waayo nimanka warkaan ay siinayeen waa niman reer ceerigaabooda way garanayaan waxay garanayaan shakhsiyaadkii bay garanayaan magacyadoodii bay garanayaan inaayahoodii bay garanayaan waxa meesha cabaasu nin aanu garanano ceerigaabo caanka ahaa oo meydkooda yaalo tirabeer wey nimanka dagaalka waa ku jabeen waa lagu jabiyey maxaabiista waa laga hayaa dhimashadoodu waxa weye waa muush waa tarab weeye goobihii o dhan inaga la wareegnay dee waxa weye absolutely waa caadifad baa u talisay ciyaalka nimankii xalay ciidamada nimanka shalay kasoo baxeen ceerigaabo u tabaabashashanay waxa weeye absolutely markaasa ayay waxay isdheheen war nimanku awood ma hayaan bay isdheheen dhamac iyo dacar bay leefeen dacar baa la leefsiiyey xaqiiq dacar baa la leefsiiyey waxaan rabaa inaan daba fariin u diro horta marka koowaad ciidamada guud ahaan meel kastoo joogaan waxaan baliyeynayaa guul iyo gobonimo aad soo hoydeen insha allahu tacaala waan idinku hambaliyeynaya waxaan rabaa inaan la hadlo dhowr qodob baynu u baahannahay inaynu isla ogaano si dagaalkan ceerigaabo inaynu ku wajahno oo dee waxa weye haddii la guurayahay xaqiiqada ah horta marka koowaad dagaalkan waa in aynu ku galno qabiilkaasna waxa weeye gobolkan iyo deegaankanba reer harti la yihahda degan weliba especially warsangeli iyo dhulbahanta waa jir reero kala daaroodo degan oo magaalada ku dadsan laakiin waxaan ka hadlaya majority aan ka hadlaya
horta marka koowaad waa in dagaalka aynu qabiil ku galnaa inagoo warsangelaya iyo dhul bahanta waa qodob siyaasad meel aynu iska dhigno siyaasadda meel aynu iska dhigno qodobka labaad waxaa loo baahan yahay warsangeli iyo dhul bahante inay isku laabtaan oo ay isku noqdaan oo Soomaalidu waxay tiraahdaa furay xanti ma moogana Ceerigaabo markaynu qabanno go'aankaynu Ceerigaabo ku dhaqi lahayn waa inay tahay go'aan warsangeli iyo dhul bahante ay heshiis ku yihiin taasna waa qodobadan rabno in qorshe cad laga yeesho koor dagaalka Ceerigaabo aynu ku qabanano taas waa qodobka saddexaad beelaha degan Ceerigaabo ee warsangeli iyo dhul bahante leh iyo daaroodka kaleba waa in si gaar ah loo hubeeyaa oo markaas loo abaabulaa si ay qayb uga noqdaan dagaalka looga sifeynayo beesha Isaaq gudaha magaalada Ceerigaabo taasna waa arrin mudan in arintaasi gooniga loo fiiriyo arinta afraad horgalada u adeega jabhadda SNM ee beesha Isaaq cidda uu doono ama beesha uu doono ha ka dhasho waxaa loo baahan yahay go'aan si wada jir looga qaato haddii isagoo cadow la socda lagu cibaadeysto inaan cidna dhiigiisa absolutely lagu lahayn qodobka shanaad waa in la xidhaa oo la joojiyaa dhammaan gaadiidka waxa weeye haddii la kuuraya yimaada Burco iyo Ceerigaabo ee koonfur ka yimaada ee qarna ka soo leexda ee soo mara magaalooyinka Yube iyo Jidari wadadaasna way noqoto wada xiran oo hadii waxa weeye dagaalka daacadkan hay weeye wadada Yube iyo Jidari way inay xirantaa gaari mar kale aanu jirin taasna waa qodob weeye qodobka lixaad dadkeenu way inay yaqiinsadaan waliba hartiga Ceerigaabo ee warsangeli iyo dhul bahante iyo daaroodka kaleba way inay yaqiinsadaan oo xaq u arkaan dagaalka Ceerigaabo inuu yahay xaq inuu yahay waxa weeye hadii la ku aanu dulmi yahayn ee uu yahay xaq sababta waxa weeye dagaalka laas aanu waxa ku kala duwan yihiin ma jirto maanta magaalada Isaaq baa haysta magaaladan banaankeena ku joognaa maatada iyo dadkeeniba marka guryaheeni iyo deegaankeeni inaynu ku dagaalano aynu qabsano waa xaq waajiba qof kasta oo hartayna inuu qaato oo aamino weeye qodobka toddobaad qofkii ama reerkii ama groupkii isku dayay inuu negotiation kala galo arrimaha Ceerigaabo wada xaajood iyo wada hadal arintaasi in loo aqoonsado cid raalli ka inay tahay in Isaaq ku maamulo Ceerigaabo Isaaqna u dowladeeyo oo ay gudnimada foosho xun ay ku jiraan taasina waa in loo aqoonsado waa qodob muhiim ah qodobka ugu dambeeya ismada dhaqanka warsangeli iyo dhul bahante waa inay abaabul galaan oo dagaalkan uu yahay dagaal qabiil oo in magaaladeena iyo deegaankeena aynu ku difaacanayno guryaheena aynu dib ugu laabanayno waa inuu dagaalka daacad ka noqdaa ismada dhaqanka warsangeli iyo dhul bahante qabaayilka la reedi gareeyaa la diyaar garoobaa beelihii lagu laabtaa ciidamo la guraa dagaalka ay safka hore ka jiraan inagoo qabiila oo warsangeli iyo dhul bahanta qodobkaasina waa muhiim sideeda qodob hadaynu raacno waanu si mid walba si soo qaadano waa huwa si degdeg ah guul weyn uga keenano dagaalka magaalada Ceerigaabo halka waxa maray waa Isaaq cid kama qamo jirto macna guraan gufkoodii macna laangaabkoodii macna waxa weeye waxooda rabay wataan marka dagaalka waxa loo baahan yahay in sideeda qodob aan carabaabay inuu sida tahay u wajahno insha Allah taala intaas aan ku soo gabagabeynaya nimankaasina jugta maanta gaadhay kama soo waqsan doonaan xaqiiqo way wallah khayr baan biirsan